Al-shabaabkii ugu badnaa oo soo buux dhaafiyay degmo ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe waa tee degmadaasi. Muuqaalkan ayaan kugula wadaagi doonaa daawade, laakiin intaan xogtan u guda gelin, muuqaalka like saara, sii share garay oo la wadaag saaxiibada boggaana follow soo dhee mahadsanida. Aynu ku bilownay wararkay naga soo gaaraya gobolka Shabeellada Dhexe ayaa sheegaya in shabaabkii ugu badnaa ay soo buux dhaafiyeen aagga degmada Mahaday ee gobolkaasi, sida ay noo sheegeen ilo dadka deegaanka ah. Kooxda Al-shabaab ee gaaray halkaasi ayaa la soo warinayaa in ay ka soo firxadeen dagaalka ka socda gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya. Wararka ayaa intaasi ku daraya in xubnaha Al-shabaab ay fariisimo cusub ka sameysteen deegaano dhacajiinka webiga Shabeelle oo hoostaga degmada Mahaday ee gobolka Shabeellada Dhexe. Kooxda ayaa dareentay culays weyn oo uga imaanaya howlgallada ka dhanka ah ee ka socda Hiiraan oo ay iska kaashanayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa dadka deegaanka ee macawiisleyda loo yaqaano. Xaalad kacsanaan ah ayaa laga dareemayaa deegaanada lagu arkay kooxda Al-shabaab oo horey looga saaray qeybo badan oo ka mid ah gobolka Shabeellada Dhexe, sida ay noo sheegeen dadka deegaanka ee ku dhaqan halkaasi. Dhinaca kaleeto, ciidamada dowladda iyo kuwa macawiisleyda oo ka warhelay arrintani ayaa iyaguna u jihaystay aagga Mahaday si ay uga hortagaan is-uruursiga kooxda Al-shabaab ee halkaasi ay ka wado. Dadka deegaanka ayaa cabsi xooggan ka muujinaya in uu dagaal ka dhaco halkaasi, maadaama ay soo korortay xaalad cusub oo ku aadan soo laabashada Al-shabaab. Hirshabeelle ayaa waxaa haatan ka socda guluf ka dhan ah kooxda Al-shabaab, waxaana ujeedka uu yahay in laga xoreeyo deegaano ay ka joogaan gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe, isla markaana maamulka Hirshabeelle uu quudareynayo in gebi ahaanba kooxda uu ka saaro deegaanada maamulkiisa. Taa ayaana keentay in kooxdu markani ay miciin bido in ay soo raadsato goobo kaleeto oo ay kaga dhuumaaleysato dagaalka ka socda gobolka Hiiraan, iyadoona haatan soo fariisatay deegaano dhowr ah oo hoostaga degmada Mahaday ee gobolka Shabeellada Dhexe. Waxaana wararku ay sheegayaan in dhaqdhaqaaqyo culus ay kooxdu halkaasi ay ka bilowday, iyadoo kooxdu daneynayso in ay dhufeysyo iyo sidoo kaleeto aagag furimo dagaal ah ay ka sameysato deegaanada hoostaga magaalada Mahaday ee gobolka Shabeellada Dhexe. Sidoo kaleeto, kooxda ayaa webiga jiinkiisa waxa ay ka dhisatay sida xoguhu ay tilmaamayaan dhufeysyo adag, kuwaasi oo kooxdu ay doonayso in dhanka webiga ay isaga difaacdo wax walba oo uga yimaado. Daawade, haddii aad soo gaartay dhammaadka muuqaalka, like saara, sii share garay oo la wadaag saaxiibada boggaana follow soo dheh. Sidoo kaleeto, qaybta iyo commentiga waxaad inagula wadaagtaa aragtidaada soo laabashada kooxda Al-shabaab ee gobolka Shabeellada Dhexe, khaasatan Mahaday ay ku imaaday iyada oo cabsi aad u xooggan ay ka soo wajahday dagaalada gobolka Hiiraan ka socda.